بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال، أي هذا كان باب بيان أحكام الحال. حالك أحكامتي سعدينتي اللي عدين باب كسوي. والنوع السابع من المنصوبات، نوع تضباد كمدها منصوباتك. wuxuu baabkan sheekhu kaga warrami doonaa saddex masalo oo tacriiful xaal inuu sheego xaalka iyo tacriifkiisa, masalada labaad oo bacdu axkaam inuu sheego dikru bacdi axkaami alxaali wa saaxibih, inuu sheego axkaamta xaalka iyo saaxiibkiisu ay leeyihiin, masalada saddexaadna aqsaamul xaal inuu sheego. xaalku waxa luuqatan la yidhaahdaa mu tacriifinayo sheekhu maa calayhi alinsaanu min khayrin aw shar. lagu idlaaqa maa calayhi alinsaanu min khayrin aw shar, qofku wixii uu ku sugan yahay ama khayr ahaada ama shar. marka inaguba inaga isticmaalna idhaahno xaaladaada ka war, oo wax maxaad ku sugantay weeyaan, soo ma maa calayhi alinsaan weeyaan, ama khayr ha noqoto ama shar. waxaa kaloo lagu idlaaqaa luuqatan, waxaa lagu idlaaqaa zamaanka uu qofku ku dhex jiro, zamanka uu ku dhex jiro, oo inagii soo maraynay ficilka mudaaric mustaqbal iyo xaal buu tusiyaa, soo ma xaal maxaa looga jeedaa waqti imika socda, zamaan lagu guda jiro oo socda, marka waa lagu idlaaqaa taana. istilaaxan iyo nuxaadu waxay u yaqaanaan, sheekha ayaa sheegay, wuxuu uhi huwa waxa weeye alismu ismigii weeye, ismigii almansuubu la nasbinayey ee almufasiru caddaynayey limaa shay caddaynayay, shaygaasoo inbahama qarsoomay oo min alhay-aati, shaygaa qarsoomay oo min alhay-aati sifooyinkii ah, waa jamcu hay-a wahiya sifa, sifooyinkii xaggiisa ka ah. waayo sheekhu wuxuu yidhi xaalka waxaa la idhaahdaa wixii dhowr arrimood laga helo. arrinka koowaad an yakuuna isman, waa inuu ismi yahay. ahuwa alismu, waa ka yidhi alismu, waa inuu ismi yahay. halkaa waxaa soo gelaya alismu asariix walismu almuawal, dee ismigii sariixa ee la xusay iyo kii muawalka ee lasoo dhiraandhirinayay. waayo meesha waxaa ku baxaya ficilkii iyo xarafkii, ma noqdaan xaal, ma noqdaan. wuxuu ihi alismu almansuubu, waa inuu mansuub yahay. maxaa ku baxay alismu almarfuuc, soo ma alismu almarfuuc almajruur ayaa ku baxay. waxa nasbinayaana wuxuu noqon karaa ee ismiga nasbinaya ficil ama ficil wixii shabahaya. arrinka saddexaad almufasiru liman bahama min alhay-aati, waa inuu yahay mid caddaynaya wixii qarsoomay ee hay-aad ah. waay almufasiru liman bahama markuu yihi mansuubaadkii kale oo dhan baa ku baxay, marka laga reebo tamyiizgo inoo iman doono. min alhay-aati markuu ku darayna waxaa ku baxay tamyiizkiina u baxay, dhammaan marka xaalkan baa soo. waayo marka muxuu uga jeedaa sheekhu ismi mansuub waynu garanaynaa ee almufasiru liman bahama min alhay-aati. in bahama waa bimacnaa khafiya, waa wixii qarsooma weeyaan, wixii qarsooma ee aan la garanaynin, lam yuclam aan la garanaynin, ayaa waxaa la idhahdaa maxay in bahama wuu qarsooma. alhay-aatna waa jamcu hay-a, hay-ana waa asifa asifa weeyaan, sifadaa la idhahdaa hay-a, sawaaun kaana maxsuusa aw gayru maxsuusa, ha ahaato sifadaasi maxsuusa aw gayra maxsuusa, mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karina laakiin la dareemi karo. tusaalahaan iminka markaynu idhaahno jaaa zaydun raakiban, hadaynu idhaahno jaaa zaydun, zayd baa yimi, markuu yimiday sifaduu ku sugnaa miyay inoo caddahay? ya miyay inoo cadday sifaduu ku sugnaa? miyuu lugeynayey? ma gaadiid buu korsanaa? ma cid buu la socday? waxaa midnaba inooma cadda, soo ma xaaladiisu iminka way naga qarsoontay. markaynu idhaahno faacilkaasi wuu yimi, laakiin xaaladiisu way naga qarsoon tahay, xaaladuu ku sugnaa markuu yimi. laakiin markaynu nidhi raakiban, raakiban horta waa ismi, waana mansuub, waxaanay macno ahaan inoo caddaysay xaaladda uu ku sugnaa imaanshiyaha markuu imanayay zayd, xaaladda uu ku sugnaa sifadiisu nooci ahay. sifadiisu maxay ahayd? inuu ahaa raakiban, dee mid gaadiid korso. waayo idan halkaa marka waxaynu raakibantaasi inoo caddaysay hay-a iyo qaab inaga qarsoonaa ayay inoo caddaysay.
واي لمن بهم هل كلية هي سدا أجرومية دي بأن كسر مرني وحكفي عن إن لا يراده لما استبهم تعبير كاس أي في عنه صوابه ولمن بهم وغير معهود في اللغة وتعبير عن لغة الحديدة عن لا استعمال حانو شيخو ku raacayun asalkii oo ajruumiyada ah waa ajruumiyaduna liman bahamada su'aal marka limastabahama ayaa saxa way taariifkiisa wala fahmaan malaynaya Sooma way hadaba halkan sheekhu wuxuu noogu ishaari doonaa waxayna waa hay'a iyo qaab qarsoon Sooma qaab qarsoon ayuu cadeeya waa ismi mansuuba oo inoo cadeynaya qaab iyo sifo inaga qarsoona qaab ka qarsoon wuxuu ka soo bixi karaa oo saaxibul xaal ku noqon karaa oo ciidan qaabkeedu qarsoona uu noqon karaa faacil wuxuu noqon karaa mafcuulka wuxuu noqon karaa labadoodaba cid xaaladeeda la cadeynaya waxay noqon kartaa faacilka waxay noqon kartaa mafcuulka waxaana noqon kartaa maxay labadoodaba عدة حالة العضينة أنا ما قعبال لو يقارنا وحلا هذا صاحب الحال وقفك حالة كسبة ويمكن مركن لأنه جاء زيد راكبا صاحب الحال هو أيوه والزيد نكن سفدي سلشيجية حالة دي سلشيجية والراكبا وايسجوية واي مركا تاسو إنه شيء وحوري إما من الفاعل هيدا وعضينا يا إما من الفاعل حق فاعل كمدك هاتين يتاي وذلك تسال النحو جاء زيد راكبا أو كلوي جاء وحي مدي زيد راكبا حال وحفوشية أما يساقو وحفوشا وقوله تعالى يا هذا القرآن يري فخرج جواب حي هو نبي الله موسى عليه السلام منها مقالدي قريدي مكبحي خائفا يساقو خائفا عبسانية أو من المفعول أما inay ka ahaato sifadan iyo qaabkan iyo waxan la cadeynaya ee qarsooni min al-maf'ul maf'ulka xaqiisa oo saaxib al-xaalki maf'ulka laftarkiisa uu noqdo wadaalika tusaale nahwu waxa uu tusaale inaad tiraahdo rakibtu waxan koray al-farasa faraskii baan koray musrajan xaala uu xakamaysan yahay qawli ta'ala ya hadalku alla yiri wa arsalnaaka lin-naasi rasuula وارسلناك اديغا وارسلنا وانو قدرني كاديغا وانو قدرني اي نحن دي صوما نادا ما يدا فاعلك وارسلنا انغ وانو قدرني كاديغا للناس ددك حقوغا انو قدرني الى الناس رسولا حال رسول تاي اما اديغو رسولا او منهما من لبدو بيني صاحب الحال كالنقدان ومفعولك يفاعلك بل بضبع هيادو ضلع عطيني ذلك تصال النحو لقيت وحن لكل مي عبد الله إنك عبد الله اللي يراهضان لكل مي راكبيني حال عن لبضا يدو بها جديد فوشن أما وحفوشن واي وحوري صاحب الحال كو وحو نغن كرا أما حالة لعديني وباهن إن لعدي وحي كان إيمان كرتا فاعلك أما مفعولك أما لبدو دبا فاعلك يدو كتمدي لبا تصالو كاني سؤالك ودو حوي جاء زيد راكبا جاء زيد بايمي حالة دي سمي نوع عدين راكبا تكتك راكبا مركن كدرنا وحي نوع عديسي حالة دي يحيى دي وكسبنا وقت المجيء دي وقت ويمني مركا والله سبحانه وتعالى يري فخرج منها نبي الله موسى وكبحي قريدي حالدي هدي سيده لو دين لها او خائفا ان لو داري لهين qaabku ku sugnaa iyo xaaladdu ku sugnaa markuu ka baxay mee nooc cad laakiin marka la yiri khaifan waa ismi mansuuba oo inoo cadeeyay xaaladii uu ku sugnaa nabiyullaahi Muusa markii uu ka baxay qariyada خوفكي نوعما انواعدي خوفكن muxuu noqonay الخوف الطبيعي weeyaan qofku cadowgiisa inuu ka cabsada way kaas waa faacilkii bay noo cadays oo saaxib al-xaalki wuxuu noqday maxay faacilku noqday ama wuxuu noqon karaa mafcuulka laftarkiisu noqon karaa salahan imika u fiirsada rakibtul farasa musrajan rakibtu waxan koray al farasa faraski musrajan isagoo xakamaysan way xakamo waxan afka loo geliyo weeyaan
imika markay nidhaahno alfarasa rakibtul farasa faraskii baan koray ee kuma cadday inaad kortay isagoo xakamaysan ama isagoo caddaysin ah dee kuu yahay may caddahay ma cadda haddaynu intaa ku dayn lahayn laakiin haddaynu nidhaahno musrajan haddaynu nidhaahno waxay noo caddaysay inaanad isagoo caddaysin aanaad korin aad kortay isaga oo xakamaysa caddaysinba ma garanaya rag badani waay hayla yaabin amba soomaaliga si fiican baan imika ururiya haye koora waa tala isku qabsaday musrajan markaa waa koore waxaan u haystay geelun in la kooraa loo isticmaalay musrajan isagoo kooraysan weeyaan markaanu kooraysnayn caddaysmaa la idhaha soo ma waay ya heensaysan rakibtul farasa faraskii baan koray musrajan isagoo kooraysan ama heensaysan waay marka waa de isagoo hawshaa ku sugan almuhim musrajan imika maxay noo caddaysay kooraha iyo xaaladdu ku sugnaa bay noo caddaysay xaaladii uu ku sugnaa farasku markaa saaxibulxaalka wuxuu noqday dee mafcuulkuu noqday ilan kama ma odhan karno waa faacilka miyaa la odhan karaa mayde waa isaga saaxibulxaalki ama hadalku alla yidhi wa arsalnaaka linnaasi rasuulan wa arsalnaa waanu ku dirnay annagu ka adiga oo nebi maxamedow kaafku waa damiir mutasila oo mafcuul yaalla soo maa maxal mafcuul yaal linnaasi ay ila nnaasi laamtuna waa laamka xarfu jarka waa bimacnaa ilaa xuruufta jarkuna macaanida mararka qaarkood waa iska naa'ib noqotaa xagga macnayaasha waay walow qaacidadaasi aanay mudarid ahayn linnaasi ay ila nnaasi xagga dadkaanu kuu dirnay rasuulan xaal aa tahay maxay rasuul xaalaa tahay rasuul waay iminka u fiirso wa arsalnaaka linnaasi rasuulan rasuulan maxay inoo caddaynaysaa xaaladda uu ku sugnaa nebi maxamed markii la diray sooma wax xaaladay caddaysay marka waxay caddaysay waa mafcuulka de waa kaafko waa mafcuulka oo cidda lala khidaabayo nebi maxamed aw minhuma ama labadoodaba way caddayn kartaa waxay caddayn kartaa faacilka iyo mafcuulka labadiiba mar bay wada caddayn kartaa sana waxaa tii laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakibayni xaalaan labadeeduba wax fuushanay annagoo wax fuushan bay ka dhigantay waay imika u fiirso raakibayni waa ismi mansuubo welibana muhanaa sooma labadoodaba u noqonaya xaaladii labadoodaba u caddaynaya oo ta'doo qofka hadlayaana uu caddaynaya faacilkiya waxaa kaloo caddaynayaa mafcuulu bihiga oo cabdallaahiya tusaalahan iyaanu kaaga khaldamin tusaalihii hore aynu ku soo marnay ajruumiyada oo ajruumiyadu isagu wuxuu lahaa laqiitu cabdallaahi raakiban mufrad buu ka dhigay marka labada midun baa loo celinaya sooma ima alfaacil wa ima almafcuul laakiin haddii la idhaha raakibayni maxay noqonaysaa labadoodabadi markaa saaxibulxaalku wuxuu noqon karaa faacilka wuxuu noqon karaa mafcuulka wuxuu noqon karaa ish labadoodaba intaasuu halkaa ku sheegay wuxuu ihi masaladii labaad buu halkan uga gudagelayaayo markaa labadan saddexdan uu sheegay in saaxibulxaalku ma noqon kareen ilaa waxa la isku waafaqsan yahay 6 inuu noqon karo saaxibulxaalku meel toddobaadna waa la isku khilaafsan meesha toddobaad ee khilaafkeedu ku jiro tusaalayaasha baynu ku dhex arki doonaa marka muhiimaddu laakiin imika inaynu inagu intaas ugu kaaftoonno oo inoo iman doonaan meelahoogeenu ugu iman doonaan wuxuu ihi bacda axkaam alxaal wa saaxib alxaal buu sheegaya wuxuu ihi walaa yakuunu ma noqonaya alxaalu xaalku ilaa nakiratan nakira mooyaane wax kale ma noqonay fain waqaca haddii uu dhaco bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeed uu ku dhaco awila waa la awilaya binakirati nakira lagu awilaya ay ilaa nakirati nakira xaggeed baa loo awilaya wadalika tusaale naxwu jaa waxa yimiday zaydun zayd baa yimiday waxdahu ay munfaridan xaal uu keli yahay والغالب سيدا غالب كينا كونه وإنه هذا مشتقا وإنه مشتق هذا وقد يقع واحد عكرت إنه مشتق من صار بشيء عن جامد هين وقد يقع واحد عكرت إنه دع جامدا هو ده حالك جامدا مد جامدا إنه دع جامد كاسو مؤولا لغو أولا يبي مشتق اسم كلام مشتق لغو أولين وذلك تصال نحو بدت الجارية قمرا بدت وين موقع الجارية ويننتي يريد قمرا أي مضيئة
iyadoo warwarayso ifaysa wabictuhu waan iibiyey yadan biyadin waxa loo jeedaa mutaqaabidayn xaal aanu kala qaadanay wadkhuluu rajulan wadkhuluu gala ayl daarabade daartii gala rajulan ay mutaratibayni idinka oo kala tartiibsan xaal aad kala tartiibsantiin walaa yakuunu mana noqdo buu yidhi ilaa bacda tamaami lkalaami dhammaystiranka hadalka mooyaane walaa yakuunu ma noqdo huwa oo xaalkii ilaa bacda tamaami lkalaami hadalka dhammaystirankiisa gadaashii mooyaane wax kale ma noqdo waxa loo jeedaa oo hadalka looga jeedaa bacda jumlatin taama jumlo dhammaystiran mooyaane ma daba dhaco wax kale bimacnaa waxa looga sii jeedaayo macnaheedu ay tahay annahu xaalku laysa axada jus'ay aljumla jumlada labadeeda qaybood mid ka mida ma aha walaysa almuraadu loogama jeedo bitamaami lkalaami hadalka dhammaystirankiisa loogama jeedo an yakuuna inuu ahaado alkalaamu kalaamku mustaqniyan mid ka kaaftoomaya canhu xaalkii mid ka kaaftoomaya bidaliili qowlihi tacaala waxaana arrintaa u daliila hadalku alla yidhi walaa tamshi fi lardi walaa tamshi ha socon nebi maxamedow fi lardi ay cala alardi arlada dusheeda ha socon maraxaan xaal aad iskibrinayso waay walaa yakuunu saaxibu lxaal halkan wuxuu kaga warramay been nidhi masaladii labaad oo ah inuu gudagalo axkaamta ay leeyihiin xaalka iyo saaxibulxaalku xaalka axkaamtiisii buu ku bilaabay wuxuu yihi laa yakuunu alxaalu ilaa nakirata xaalku wuxuu noqdaa uun nakiro waa sida qaalibka waa inuu noqdo xaalku nakiro waa inuu noqdo waayo saynu arki doonno dee saaxibulxaalkii baa noqonaya macrifo haddii uu macrifo aynu ka dhigi lahaynna dee waxaaba loo qaadan lahaa inuu iska sifan yahay inuu iska sifa yahay marka isaga iyo sifadu waxay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay waayo labadooduba de waxay caddaynayaan mid waliba dee sifo iyo qaabunbuu caddaynayaa sooma waxay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay xaalku markaa qodobka koowaad waa inuu nakiro yahay haddii la arko xaal macrifo ah oo macrifo dhaco lafdi macrifa uu ku yimaado waa la awilaa awil mawridan idaa warad baad ku dhaqmaysa waa la awilaa oo waxa lagu awilayaa maxay nakira lagu awilaya waxa uu tusaale imika tusaale aanu keeno jaa zaydun waxdah jaa waxa yimid zaydun zayd waxdahu xaal uu keligii yahay waxda te waxa weeyaan macrifo waxay ka mid tahay kalimaad dhowroo macrifo mooyaane wax kaleba aan yeelan nakiraba aan yeelan macrifo weeyaan marka waa in dee xaal saynu uga dhigno macrifo kama dhigi karna waa inaynu ku awilno ismi kaloo la macnaa oo nakiro ah waxdahu ay munfaridan xaalu keligii yahay munfaridku waa shaksiga keligaa sooma markaa nakiraynu ku awil munfarid waa nakira dee oo inay nakiro tahayna dee alif iyo lam baynu gelin karnaa sooma waa sidoo kale de waa ismu shaayicun fi jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara weeye oo dee qof odhan karaa anuma munfarida miyuu jira laa yumkin waay haakada marka munfaridan ayaynu ku awilayna waa sidaas qodobka koowaad xukumka koowaad waa la fahmaan malaynay iska jilicsan xukumka labaad wuxuu yihi kownuhu mushtaqan walqaalibu kownuhu mushtaqan waxa uu qaaliba ay alakthar sida uu aktharkee u faraha badan xaalku waxa weeye inuu ahaado mushtaq waxaynu hore usoo qaadanay in mushtaq iyo ay kala jiraan maxay jaamid mushtaq iyo ish jaamid mushtaqu waa wasfiga le maakhud min masder de sooma masder iyo meel laga soo qaatay shayga labaa la idhahdaa mushtaq waay jaamidna waxaa la idhaahdaa waxaan meel laga soo qaatay baan jirin xaalad kaliya un laazimaya oo meel alla meel laga soo qaatay aanu jirin sida qaalibkii waa inuu kownuhu mushtaqan waa inuu yahay maxay mushtaq mid meel laga soo dhambashay leh masder laga soo dhambashay leh sida maalan tusaalayaashii aynu soo marnay oo kale rakibtu tusaalahaan laqiitu cabdallahi raakiban ama jaa zaydun raakiban raakiban iminka waa ismi mushtaqa sooma meel laga soo dhambashuu leeyahay masderkiisa waa maxay
والركوب كده الركوب كاين مصدر بولي إذن وهالكاس فخرج منها خائفا خائفا نما كوفير ما لقى صورنا بشي من ليه وليه هو محي وخوف كوي هكذا تصالي ياشي مركا أغلب كواسداس مركا قارو حد على لكن إنه جامد نقضه هدي جامد نقضه الله حالا مدون بيكو أيوم بكو سورة كليه لبدا حالو waxa weeyaan inaad awili karto oo aad keeni karto wax la macna ah oo mushtaq ah sidii nakira markuu macrifo noqday ba aynu ugu awilnayn maxay nakira aynu ugu awilay sidaas oo kale inaad u awili karto waana sida badan mararka qaarna taawiilka buu diidaa kama hadal laakiin sheekh maadaama aanu ka hadalna hawsheeda galimeyn way imika u kaale hadaba جامد كان إسقى نقضي ولا أولية أو واحد لقوا أولية إلى مشتق واحد كان يساوي وصف لم معناه أو مشتق كلمة دي جامد كاي وصف لم معناه أو مشتق صالحاني مكان الجارية جاء بدت الجارية قمرا بدت وحي موقتي بدت وحي موقتي الجارية إلى أنت يري قمران حالي وروريس ويمك حالك وحو نقضي قمران صوما قمر يطيح حالي راح صوما واي طيح لكن كلمة دان قمر تمال لغا كيني مجرتو ميل كلاو لغا سي دنبشا مجرتو وجامد سو واضح ما مستر لو علينيو مجرو وجامد ووصف ما صفكما تصيني واي هذا markaynu inanta aynu ku sifaynayno inay qamar tahay de xageenu kaga sifaynayna xagga de iftiinka Sooma idaaga iyo de iftiinka Sooma marka waa inaynu ku macnayno wasfi tusinaya iftiinde wasfi tusinaya iftiin baynu qamarkii ku awilayna oo isagu de master leh waxaynu ka dhigaynaa marka mudii'a xaala ay tahay maxay mudii'atan mid warwarayso ifis ana dayax baad u eegtay soo lama معناه ما قمر بو نقضي ما سوما لكن هو محي حق افتينك اللي يشبه حق افتينك هكذا واي تصالها لبعض وبعته يدا بيد وبعته شيء وانيبي يدا بيد حاله يهيد بيد يدا بيد المحل لوga jeeda waa la kala qaatay wixii weeyaa Sooma ninkii iibinayna alaabtii buu wareejiyo ninkii iibsanay ku wareejiyay ninkii iibsanayna lacagtii wuxuu ku wareejiyay waxa wada dhici karta inaanay gacan isku dhiibin soo saama laba gacmood isku dhiibeen inaanay jirin isna miiska alaabta u saaray kan kalena saadka ugu diray basba yad biyad oo mid kale waa jaamid yadi waa jaamid wasfi ma waa jaamid way marka waa inaynu ku awilno maxay wasfi waa inaynu ku awilno oo in raahno mutaqaabidayn xaalo aan kala gudoono kala qabsan kala qaadan waa kala gudoomid Sooma qabdigi حالة واحدة وادخلوا رجل منك هو جامد ننين أصوغلا بيكا ديغانتي ننين أصوغلا محان لوغا جيدا لكن ننين أصوغلا مركا للي دي هاي سبربر ياعين ايديكو كلا دادنبايا Sooma مركا الرجل واحد كو بدشا هل كادا جامد كا واحد كو أوشا أي مترتبين ايديكو هي كلا ترتيب سن حالتين قار كلا ترتيب سن واضح واي تصالياشن هذا بدت الجارية قمرا صاحب الحال كان دوني ان لغا سو صار صاحب الحال كواي جارية واي وبعته يدا بيد اي متقابدين يا اظن حد يا هذا متقابدين لا صعد حالك انه كو اولين لا صعد متقابدين حاران وكلا غدون قابدين ايه هذا مفعول كوكليه ايه تيتي ما لفظي ماشي يا لو كل علم وهذا يا هذه
لأن صوت مثنى لقى دقيقة متقابلين بعت هو هو فاعل كي مفعول كبدي واي وادخلوا رجلا أي مترتبين بين آخرين ملاها مركي وراي مترتبين حالاتين قال كلا ترتيب مترتبين هيه صاحب الحال كوكي هيه عبد الأحد واو الجماعة وين وجمع وين دي واو الجماعة مترتبين وين عفوا ملاها مركي وراي مترتبين بين آخرين واي حكم كصدحات وحد ولا يكون إلا بعد تمام الكلام حالكم من نقضوا إلا هذا الكم مركو ما يسترممو يعني حلو قد شيء إلا بعد تمام الكلام وحلو قد شيء أن حالكم منصوب منصوبات كنا وحي هايين عندما يهين محي هنشري فضلته صوما ديرات واي markaynu sida leenahay waxa looga jeedaa buu sheekhu ay bacda jumlatin taama xaalku wuxuu daba dhacaa jumlad dhameystiran jumlad dhameystiran waan garanaynaayo waa jumlad laga helay labadii juz ee jumladu ay ka koobnayd oo jumladu laba juz bay ka koobantay musnad iyo musnadun ilayhi waa labadaas ka koobantay oo tusaale ahaan imanka marka musnad waa mid la tiirinayo iyo musnadun ilayhi mid xaqiisa wax loo tiirinayo jumladu laba ay hado jumla ficliya iyo jumla ismiya هذين جملة فعلية سواء قادنا فعلية فاعل بيك كوبنت سوما جاء زيد باي مدي ان فعل هو مسند اليه فعل هو مسند كي تيرنيه جاء واي زيد نوا كلو تيرنيه فعل كايمانشيو ومسند اليه واي هذين جملة اسمية سواء قادنا تصالحان waxaynu soo qaadanaa زيد قائم خبر هو مسند سوما مبتدوهنا ومسند إليه مد حقيسه wax loo soo tiirinay haakada waa intaas ay ka koobnayd labada juzbe jumladu ka koobanta marka wuxuu ku jumla taama markay dhameystiranto ayay imanaysaa uu ku sii fasiro wuxuu ku yiri labadii juz ee jumladu ka koobnayd ayaanu xaalku ahayn oo tusaalaan markaynu iminka nidhaahno jaa zaydun raakiban labadii juz mee ka koobantay ma musnad ba ma musnadu ilayhi ba ma yade xaala iyo qaab qarsoonuba inoo cadaynaysa laakiin ma sheegayso labadii jumladu labadii juz ay ka koobnayd ma hadalka si khaldan ha u fahmin buu ku yiri muraadka looga jeedo marka la leeyahay waa illa bacda tamaam kalaam hadalku markuu dhameystirmo kadib uu imanaya markuu ku leeyahay macnaheedu ma hadalka ka maarmi kara xalka macnaheedu ma hadalka ka maarmi kara sida khaldan ha u fahmin waxa dhici karta inaanu ka maarmi karin ba hadalku oo imika aayad bay noo keenay wala tamshi fil ardi marahan aayadan hadaynu maanta xaalka ka reebno oo in raahno ahad juzay kalaam kama mid ah de waa fadlay naga reeba mar hadaynu raahno waxaba ka soo baxaya maxay macna baadila macna yeesh baadila ka soo baxay wala tamshi ha soconin fil ard wala tamshi misajeer quraanka ku saartay laba jeero kaliya way wala tamshi fil ard marahan imika u fiirso wala tamshi ha soconin fil ard ay ala al ard arlada hadul socon haye halka hadii ku diina ka warama معنى فاسدة كسعن بحيدة تقف مضولية يا معنى فاسدة كسو بحيدة أيضا معنى أمي تشيدي سوما مرحا لكن تنالو تشيدي حالة النوع عن تايدة يسكبرين يسودي يا سلوين تاي هكذا واي ورمرك هالكامل لفهمه ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لبدي جزء جملة بانو كمي هيني معنى ما هذا الكو كمار مكرا واي أرنك الصدحات هل كاسو مركا صدح ذا حكم بوكا شاقي مركا تصال الله بعد هذين وصوا قادرنا إلا بعد تمام الكلام وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إمي كوفرس وما خلقنا ما نان أبورين السماء السمدي يو الأرض أرضي يو وما بينهما وحي ودحي اللي بدوده هاي لاعبين حالان هاي قارسك عياري يسك تشيسي يسك ديال اسك قصو واي هذين نرانو إمي كلاعبين ومحي ودس حالكي سوما صاحب الحال كنا ناضدي خلقنا ذا كجرت واي وحالكي هدينا راهنا وكو بارمي كرا maxaa ka soo baxaysa moobaanana amuuri samada iyo arlada iyo waxa u dhaxeeya bis halkaas ugu istaagay Soomaa marka hada macna faasida ka soo baxay macna faasida ayaa ka soo baxay waxa kada wuxuu yiri saaxibul xaalkii waa ahkaamtiisa isagana sheegay wuxuu yiri walaa yakunu ma noqonayo saaxibul xaalkina ila macrifatan mooyana wax kale ma noqonayo kama taqaddama sidii soo hormartay filim amtiladii ku soo hormartay أو نكرة ما نكرة بنقناه لكن مسوق وضعتا وذلك وحو النسية وذلك تصالح نحو في الدار جالسا رجل في الدار
daarta waxa ku sugan rajulun nin baa ku sugan jaalisan xaalu fadhiyade jaalisan tiba horeysay laakiin jaalisan xaalu fadhiyo rajulun nin baa ku sugan waquli ta'ala ya hadalku alla fi arba'ati ayyamin sawa'an fi arba'ati ayyamin maalmo afar dhexdood sawa'an xaal ay simeeyeen isku mid way waquli ta'ala wama ahlakna min qaryatin illa laha mundirun wama ahlakna ma nanhalagin min qaryatin qarya xageed ma nanhalag illa laha hadii aanu halaagnana iyadoo waxa u sugnaaday mundiruna qaar he u digay way oo min qaryatin taasa xaalkii dhacays way wa qiraa'ati ba'dihim ya hadalka qiraa'ada ay quraada qaarkood akhriyeen ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا أي أخرين بالنصب ولما جاءهم مركو يمدي قال ذي كتاب كاسو من عند الله حق لك هذا مصدقا حال ويهمد رمينا وحي يسوي كوري واي هل كان شيخ وحا ومركا كجور رمي صاحب الحال وعلى صاحب الحال كورته وحا واصل إنه يهي معرفة لأنه هو محكوم عليه صوما هذا وكحالتي ساب كان إنه حاجلتي سحكومة إننا عطينا إننا صوما شيء جنا مركا اللي عطينا يلا حكومة وإنه معرفية ولا قرنا يدي هدول نكرية هي يمن نقني والأصل في المحكوم عليه هو التعريف وين لا قرني لأن الحكم على المجهول لا يفيد غالبا وهي هذا تقف مجهولة حكم تدو حمل فايدين يصير غالبك وحول مركا هو معرفة النقطة أصل قواصدة نكرة ما نقول كرا ها هو بنانته نكرة ونقول كرا لكن بمصوق مبتدوه محو هنجري معرفة صومه لكن نكرة ما نقول جري ها حال لكن لا يرهبي مسوقاتك واسيدي صاحب الحال كن هو بمنزلة المبتدأ وحو يالاون بوسكي مبتدوه هو كله بوسكي مبتدأ مركا نقول ورمى إنه ما هم معنهيدو بوس مرفوع ويالا هو فاهمين هذا حاجة معناها لقى لي بوسكي مبتدأ حالتنا waxay taala booski khabarka xaaladuna maxay taala booski khabarka way musawiqaadku waa farabadayna halkan sheekhu wuxuu ka sheegay saddex laakiin qaabka uu sheegay qaabkii mubtadaha way ka duwan tahay oo wuxuu sheegay qaabkan uu tusaaleeyo mubtada muxuu oranay uu sheegay Soomaa intuu sheego tusaalaha sheegay Soomaa musawiqa intuu sheego ayuu hadana tusaalaha sheegay laakiin imika tusaalayaal uu garka isku gali way tusaalaha koowaad fi daari jaalisan rajulun imika صاحب الحال هو كي يا أين صاحب الحال رجل صوما هي رجل ما نكره مسوى معرفة ونكره صوما نكره وي نكره دني يسوي نجوجي صاحب الحال كونه معرفة نقطة وين نقطة لكن ما أنت مسوق بوضعتها أو مسوق وامح تقدم الحال على صاحب الحال إنه حالك كهر مري صاحب الحال تقدم الحال على صاحبه وإنه كهر مري محي حالكي صاحب الحال كينو كوري جالسن oo xaalkii oo horeysa Sooma rajul oo صاحب الحال kiina uu dambeeya taasa musawiq noqotay rajul inay ahaato iyadoo nakira صاحب الحال inay noqoto taasa musawiq noqotay tusaalaha labaad fi 4 ayaamin sawaan way imika fi 4 ayaamin xaalkii imika mee horta سواء حالك سواء هي صاحب الحال كنا 4 دوية 4 نكرة واي نكرة لكن نكرة نيمك ولا تخصيصية وهي لا تخصيصية ومحل نقول تخصيصي بالإضافة مضاف نقطة ومضاف إليه ما نوضن 4 أيام تخصيص وامرك قال 4 كسر لو ما تشيده محل لو تشيده أفر مع الموت بلو تشيده واي sidaas ay ku noqotay maxay saaxib xaalkii uu ku noqday nakira uu ku noqday tusaalaha saddexaad waa aayadan qiraa'adii waa qiraa'a shaadda weeyaan qiraa'ada noocan in qaabka loo akhriyo baqiyatu alqurra بالرفع بآخره يعني مصدق بآخره وإن النعت تهاي كتابك هاي نعت وتهاي يصف لكن قراءة إن نصبها لقديقة وقراءة شاذة ويا حنا أخريه إبراهيم ابن أبي عبلة واي
إمك أوفرس ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا صاحب الحال كم أين صاحب الحال يا أيضا وما أهلكنا بكوري سوما أيضا سنكبود صلاة سكوري وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وتصالها صدحات تصالها نينا وحكى لما هي جملة إمك لها منذرون وحاب وين أركي دونا حاجة دمين كأركي دونا جملة دم بنقول كرت حال جملة دم بنقول كرت معي حال مركا وحي كده جنت وما هلكنا ما ننهلاجنا نجو من قرية حجة ما ننهلاج إلا لها منذرون إلا يضو أي أصب ناتي محي منذرون قارودية مركا يضو ضو وادي هي جملة دم بقى محي حال هي صاحب الحال هو كي يا صاحب الحال هو من قرية جاري مجرور بنا روح نص مرني وحنري جاري مجرور وحو شيخو إنه صاحب الحال نقون كرون فاعلك أما مفعولك أما اللي بدوده يعني ما حنري إلا اللحبة اللي جالسية سوما حايمك كامدة جاري مجرورك وحكامدة آيات ورا محن مرين مضافية مضاف إليه سو مركزي إما كالك سامين الشنكو هنا سوما كالك سامين الشنكو هنا واي إن إما صاحب الحال كإما كمركا وحو نقضي إيش من قرية واي قرية ذا نقض يجونا ده مركا لاجي جاري مجرور كان لسكو جينا قرية دي وا اسمه مجرور كوا نكرة صومة اسمه مجرور كوا محي والنكرة ده اسمه مجرور كوا نكرة وقرية دي وا نكرة معرفة ما صاحب الحال كهذا محاكا دقي ما أنت نكرة داسي أعنسية إلى نقطة صاحب الحال وحاو عنسية تقدم النفي عليه وحكورة يا محي نفي باكورة حكورة نفي أيا كورة نفي أيا كوري أيضا لبعض وشيخه كان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا نصبها سيدها دي الله آخرية أيضا قرادا مركا لا إيغو تاني ماها تصالي أفراد ماها تصالي إيش أفراد ماها تصالي أفراد ماها وحي لمتها ينتي في 4 أيام نوبي لمتها ويمك ولما جاءهم كتاب إمك صاحب الحال كم إيه يا صاحب الحال هو كتاب وأنا نكرة واي صاحب الحال كان إمك النكرة ده كتاب وحكينا إنه نقضه نكرة إنه هذا يسقى صاحب الحال ومعرفه نقوي لأنه تخصيص باقي وصير له تخصيص ده بالوصف كي هو بالإضافة هسامة كنا بالوصف وبالوصف مركا تخصيص باقي وصير له تخصيصية وحويا صفة كدنبيسة صفة هي كدنبيسة ولا صفية أو واتن ده كتاب كاسو هي من عند الله إلهي حقيسة كأهاد من عند ذا شيء حقي ما حي صفينسا كتاب كي صفينسا صوما مركا تخصيص كاساقل مركا صدح ده مسوقة وشيقوا محي كو تقدم الحال على صاحبه كلوات تخصيص كاسو حنا نقول كرا بالإضافة أما بالصفة كصدحنا ومحي تقدم النفي عليه إنه كوري محي نفي إنه كوري واضح ما صدح راسه مسوقات كشيء كجود ويقع الحال ظرفا هل كانوا حكوا شيء يا مسألة دي وجودا بيسيو ظرفكو وحن كذا حالكو محو نقول كرا أقسامتيس وحلو يقع وادعي كرا يوحى أقسامتيس وحكم ذا ويقع الحال حالكو إنه دعوة ظرفا ظرف إنه نقضه وذلك بسال النحو رأيت وأنا أركي الهلال ضيحي بأنا أركي بين السحاب حال وكل حسومية محي لبضة ضرورة دحدث وجارا ومجرورا بون غنكرا حالك وذلك بسال النحو فخرج على قومه في زينته واي فخرج وصوبحي هو ده نكيس كبرين معنا واي على قوم كيسبو كسو أيو كسو بحي في زينته حال وكسوغي محي اسقرحنتيسي ويتعلقان waxay ku tacalluqayaan darafka iyo jaari markuu bi mustaqir حال وكسوغي weynaga leh mustaqir Soomaaliga wadigu soo qadiray wa tacalluqayna soo marnay oo halka laga macneeyay aw istaqarrade waa isku macnoon maxduufayni xaala labadooduba ay go'an yihiin oo la gooynayo wujuban oo hadalka lagu dhex sheegay laakiin laga macneynay hore waa tacalluqayna soo
ويقع وحو دعايو sidoo kale aqsaamtiisa kamida jumlatan khabariya inuu noqdo jumladaas oo khabariya oo murtabidatan mid ku xidhan ah bil waawi wow aw wadamir ama damir bil waawi wow iyo wadamir damir wadalika sala nahwu kharaju min diyarihim hum uluf وكلا أو بالضمير فقط أما الضمير كلي يكون حرنتي وذلك سؤال النحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو ويأو بالواو أما ودي سوى كسم وذلك سؤال النحو لئن أكله الذئب ونحن عصبة أو كلوي واضح سمع واي هل كانوا حكوا قد قلي أقسام الحال حال كوح نقول كرا لا بقى يبغى ذاك اليوم أنت أصلا قيب أما وح نقول كرا مفرد أما غيره مفرد وإنتاس مفرد أما إيش غير مفرد هذول نقطة اسكا واضح وواضح وحين صامرنا يورا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ما مفرد لكن لو جت غير جملة غير مفرد ما محل لو جت هذا ووحي جملة إيوه شبه الجملة وتيد مبتدأ هي خبر كانوا صامرنا صامرنا ساس على قط واي يسقوا مفرد أي مكان كم بينهم مش شيء وايو تصاليا شهرة ومش شيء جاء زيد راكبا من إنه سومر راكبا تام ميدان يعني وده مفرد هاي من جملة هاي جملة ما هي واضح حلقة نار وحنا نقول كرا جملة أما شبه الجملة شبه الجملة يبقى بالعباية ظرف يجاري مجرور بشبه الجملة هصامة حال كبا وحنا نقول كرا ظرف أما جاريه مجرور وترك العسل ظرف مركو نقضه وتنوى رأيت الهلال بين السحاب وحال ده لكن هو جملة وشبه جملة وأنا ظرف فخرج على قومه في زينته وحال وجاري مجرور محل حال يالا واي شبه جملة سامرك حال نقدر بوسكي حال كيال سي الله إعرابيا واسكت عصمتي رأيت وفعل يفاعل الهلال أنا ومحي مفعول كي بين وظرف إيش ظرف مكان صمة واي بمتعلق بمحذوف صمة بحال محذوف ومستقر واي بين ومضاف الصحابين ومضاف إليه ويجمه جملة ثانية لا بوسكي أما بدأ حال هو قوي بدوران كرتايا مستقرا أيا لو سوق قدري ويجاري مجرور كنا أساسا كل ما الله يعرفه صوادح ما إن وحو يدي جملة ولا غنكرة جملة اسمحين نقول نسمعها جملة إيش فعلية أما جملة اسمية جملة فعلية أما جملة اسمية هذا وحو شروط بين هذا مركو جملة نقولين تنو باير وحوجا هذا لو يربح هني مركا ويحاول بدنتي لكن وطول مرينا انت هاير وشاقون بينو كافتومين شروط فافاسن بي وباهنتي وحو جملة مركو نقولين حالكو مركو نقولين حالكو نقول شاقي إنه نقول جملة داسي أي نقطة مدوضتا أرمها صوصع كو جملة دوين نقطة جملة خبرية جملة إيش خبرية واي جملة خبرية waxa looga jeedo waa inay fahanno maaha khabarkeenu naqaanay imika looga jeedo balaaqadii bayna la galaysa jumlada balaaqada waxa loo qaybiyaa jumla khabariya iyo jumla inshaa'iya jumla khabariya iyo ايش jumla inshaa'iya jumladu khabariya waxay tahay markay tahay ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidati ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi wax iskeed u aqbali karta beenna inay noqoto runna ay noqoto صلاة هذا ما أنت وقف كقول هذا جاء زيد بايمي جملة كوشة سوما خبر وخبر بالله جملة إيش خبرية وحي صورة جلأة دور كاسينو رن نقدنا وصورة جل يحتمل الصدق والكذب سوما لذاتي مركل اللي هنا جمل كحاجة جمل كخبرية حاجة إلهي الرسول ككيما طلق الصارة يا ماشي واي وطيوق مرنا بقى خبر هذا لكن جملة خبرية هذا لكن الله يحتمل سوما أصلا واي marka deninka zayd ba yimi marka lagu raahdo waxa dhici karta inay runtayna waa suuragal tahtamilu sidqa wal kadhib sooma inshaa'iyana wa ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba lidati wa waxan ihtimaalaynin run iyo beentoon iski oonad ku sifayn karin waa run iyo been waxa kamida amarka oo kale jumlada amarka ay oo kale ninba wuxuu kugu yiri qum waa amar sooma waa jumla inshaa'iya waa amar خبر ما هذا ورو كاغا ورمي ما هذا وإنشائي ووحو سمي كلي واي قم مركو قول هذا قم تاسي تتروا بين تاي رنتا كور يا مجنون بس نقول ده سما واي
marka la taxtamila sidqa wal kadib de waa awaamir de sooma nahyigi baa lamida nafyigi baa lamida waxyaabahaas ay shaaga la yiraahdaa shaaga kuwaas la yiraahdaa insha Allah iyadoo faahfaahsan balaaqada ku arki doonta marka waa inay jumlada horta xaalka noqonaysa ay noqoto eesh de wayna khabariya noqoto inagu ilaan wax amri mayne xaalad qof waynu ka waramayna ama shakhsi sooma shay xaaladii baynu ka waramayna xukum ba meesha yaalade xukumkuna asidqa wal kadib ihtimaali kara soo sama way haakada shardiga labaad jumlada khabariyadii waa inay ahaato mid murtabid ah ku xidhan saaxibul xaalki mid murtabida bi saaxibil xaal saaxibul xaalki waa inay ku xidhantay arrinka saddexaad ama shardiga saddexaad sidee ugu xidhmaysaa baa taala waa inay ugu xidhanto bil waawi wow yar oo dhaxaysa iyada iyo saaxibul xaalki jumladii ka hormarto saaxibul xaalki ku xidhan ama waa inuu jiro wow iyo damiir wada socda ama waa inuu jiro damiir kaliya oo saddexaasi uun bay ugu xidhmi kartaa inay wow kaliya ahaato inay damiir kaliya ahaato waxa ku xidhaya jumlada isku xidhaya jumlada iyo saaxibul xaalka iyo inay noqoto wow iyo damiir war waadix ma tahay علمي بل تصالياشن وكالي تصالياشن جملة إمك تصالحان وقهرين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم ألوف خرجوا بحين من ديارهم داره يقريوه حقوق كبحين وهم وحالهم يقويهن ألوف أيهين كن أيهين واي إمك الجملة دي بحين نقط جملة إيش يا جملة إيش خبرية سامع واي وجملة خبرية واي جملة خبرية مركي إمك ماشي نقطي وحال كده جملة ده ما يسكت رمونا وليه جملة إيش محوكسية هاي جملة وفعلية مسي اسمية جملة اسمية بوكسية جملة ده مركي نقطي صاحب الحال كان ربنا wax ku xira صاحب الحال waa maxay waa kii horta صاحب الحال aayada ku jira waa wal jamaacada kuwan baxay way maxaa ku xidhaya hadaba wal jamaaci maxaa ku xidhaya wahum wawdan iyo damiirkan meesha yaalad wawdan iyo damiirkan ayaa waxay yihiin raabid inagu xidhaya halka inagu xidhaya صاحب الحال oo isku xidhaya jumladan iyo jumladan xaalka noqotay صاحب الحال واي وضل مرياونه وفاهين بدون بيوباهانتي لكن وضل مرياون طلبات جمله اسميه تساليه جمله تنو جمله فعليه انا تسالين صلاه احنا جاء زيد وقد قام ابوه جاء زيد زيد بايمي وقد قام ابوه حال وابيه استاجب وقد قام ابوه داس وجمله ايش حاليه صمه نقطين لكن جملة فعلية سواء سامع أو خبرية نأ هاي اسكو حرية رابط كاسكو حرية واكي يا وقد قام أبوه وحي اسكو حرية ارتكو وودا إيه ضمير كأبوه كجر واضح سامع واي كاسا الله بدا اسكو حرية مركا ضمير كي إيو ووجيبه يجو وضع الصعدي من كرا سيسكو أتكيا waxa kale oo dhici karta damiir faqad inuu yimaado waxaan isku xidhay saaxiibul xaalka iyo jumladu inuu ahaado damiir kaliya wuxuu u tusaaleeyay aayadan imika oo aayadani waxay ka dhigan tahay in la yiriday imika saaxiibul xaalku horta waa kii biduu wowga ku jira Soomaa oo saaxiibul xaalki biduu dega oo taqdiirku waxa weey biduu dega أرلدي كسودة وشنادي أرلدي دجوية بعضكم لبعض عدو حال بركين ببتكتهين بعضكم لبعض عدو بركين ببرك كلا عدو هذا واي إمي كوفير صدق أيضا مركز إهكتو صاحب الحال محل نقضي يا جملة إيش خبرية دي جملة صاحب الحال كواتي أو واحد كذا جملة حالك النقط جملة حالك النقط اهبطوا صاحب الحال كوا والجماعة جملة النقط واكي بعضكم لبعض عدوون صوما جملة اسمية بوحي النقطي صاحب الحال وانا جملة خبرية واي جملة دنيا جملة دنا حال نقطي بنشا صاحب الحال بيجي قدكتي
jumladana xaal noqotay saaxibul xaalkeeda waaw jamaa maxaa ku xidhaya damiir baa ku xidhaya damiirku me ba'dukum wa kaafku weeyaan damiir ba'dukum kaafkaas saaxibul xaal way wuxuu tusaaleeyay jumladu iyadoo ismiye tahay iyadoo ficliya ma tusaaleyn karna kaaf loo damiir isku xidhaya jaa zaydun lam yadhak jaa zayd zayd baayimi lam yadhak halan qasli way saaxibul xaal kuwa kee zayd xaaladuna jumlada lam yadhak sooma lam yadhak wa jumla khabariya oo ficliyana sooma way saaxibul xaal kaas de maadaama jumlad noqotay waxaan rabnaa wax ku xidha sooma lam yadhak faacilku me damiir mustatir huwa sooma huwada saar noqonaysa waxa isku xidhaya saaxibul xaalka iyo xaalada waadix meesha ugu dambaysa waa wawda meesha ugu dambaysa waa maxay wawda waxay noqon kartaa waxaan isku xidhaya jumlada iyo saaxibul xaalki damiirba ma noqon kara wuxuu noqon karaa marka qaar waw kaliya waxa uu tusaale ah la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatu la in akalahu wallahi wa lam alqasam ki sama la wallahi la in akalahu hadii uu cuno ilaahay baan ku dhaaranay يوسف أطوعنا الذئب يجي ونحن وحالو نحن أنه عصبة أنو نهاي محي كوح هذا خاسرين بان هيدا وتكسيد ما يسمع خبرك حاجة ما داعي واي إمي كوفير صدق صاحب الحال كمية هرت صاحب الحال كسو صار أين صاحب الحال يا صاحب الحال كميه يا شيخ الذئب ويا الذئب بصاحبه حالكيا واي ان حالدنا ميدي ونحن وحال ونحن وين قال لدي سوما حالدي وجمله داس خبريه وليبنا كسي اسميه سوما واي جمله داس waxay dhacday xaal noqotay maxay isku xidhaya hadaba saaxibul xaalka iyo jumlada dawowda isku xidhaysa damiir meesha mu yaala وودا اسكو خداس ضمير ظاهره يمد مستتره تونا ما يالو وودا اسكو خداس خلاصه ان سوير خلاصه وير هذا البدن تايو وليبا ان انت شيخ sheego in ku kaaftoonay shuruudan waxa uu yar baahantay faahfaahin badan insha Allah kitaabka dambe aad inoogu iman doonta sababta la isku xidhaya waa maxay isku xidhidii laftirkeeda maxaa looga jeedaa waxa soo inoo imanaya insha Allah bilta mufradka ka adkaada jumlada dadka aad kaam kar weydaan xaalku markuu mufrad yahay uu ka adkaado way naday soo khulaasayno haduu noqdo xaalku hadii uu noqdo jumla noqdo wuxuu noqon jumladaasi ay noqonaysaa khabariye inshaa'iyya ma noqonayso jumla khabariye bay noqonaysaa waxaana shardiya inay wadato raabid ama murtabid wax isku xidhay saaxibul xaalka iyo xaaladii waxa isku xidhaya wuxuu noqon karaa saddex shay imma wuxuu noqon karaa waw iyo damiir wada socda imma wuxuu noqon karaa damiir kaliya imma wuxuu noqon karaa waaw saddexdaba tusaalayaashooda wada haysa واضح ما يا واكا واي رجع قرب كل إشكال يسوي دينيو جمل كلمة كلا تسالين يوردنا خبرية ده وأن نوري خبرية نوع ما تحتمل الصدق والكذب صوما آيات إلهي من لورنا يا صدق يو كذب احتمالا ولذاتي أصل كمرك لا يجا هذا لهم بلا جا هلا يلا جماعة هلا يو الكلامك وحدة صارت ديني احتمال وإذا كذب صوما إنه كلام كي إلهي نقدر درتين أيها صارت ولذاتي واتلوجو دري سادرتي بالذاتي لوجو دري تعريف والله اعلم واحكم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد